shacabweynaha ku dhaqan magaaladani Boorame xarunta gobolka Awdal ayaa waxa maanta fagaaraha khayriyada ah ee magaaladani Boorame kala hadlay mas'uuliyiinta hay'adda horumarinta wadooyinka ee gobolada Awdal iyo Salal ee Asarda iyadoo ujeedada kulanka maantana uu ahaa hirgelinta wadada u dhaxaysa magaaladani Boorame iyo wadanka jaarka ah Somaliland ee Djibouti oo iyadu dhan tahay 250 kiiloomitir qaadaan lacageed oo loogu ururinayo dhismaha wadadaasi ugu horeyn waxa goobtaasi ka hadlay qaar kamid ah haweenka ku dhaqan gobolka Awdal waxaan rajaynayaa hadafka maanta Asarda ay keentay waa fikir wanaagsan haddaan nahay anaguna haweenka gobolka waan in garab joognaa hiiliyo waan in garab jooganaynaa bulshada ida deegaankow danta aanu midowno inagoo isku duuban waxtar aanu dareerno kulka daasad ku tuurno dawlada aan ku samayno ee riboodka ku dayrno dekadana aan bilowno dhankooda iyaguna waxa hadalka qaatay hogaanka dhaqanka ee gobolada galbeedka Somaliland iyagoo ugu baaqay dadku inay ka qayb qaataan dhismaha wadadani أول بوار قلادين يا ماطر سوا قلادي أول بوار هذين والله بوار هذين ما ترى واحد بوري ما ترى واحد بوري اسمه لي جبوتي هي بورني والله الله يا رسول الله وعلينا أسرد هذا لولا دوام إذا كان بريئنا وضرا إلى الصباينو هذا الجوي هذا وارد يفوق نبتاعنا هاي وارد يفوق بريئنا إن أنا وضع الصباين ما تكون نوعي وعودتي نعمات دون مرتان أباي نمو قطع ودوي في هره يعني وصل صبايني mid kamid ah saraakiisha ugu sareysa hay'adda horumarinta wadooyinka ee gobolada Awdal iyo Salal ee Asarda ayaa isaguna waxa uu halkaasi kaga warbixiyay waxyaabihii uu qabsoomay hay'adda xaladtimaato oo tabino wadada marka bilaabna filaatay galada dib ugu noqdo xambi baa la nimidnay sidaynu u bilaabanay baynay waxaanu magaalada maxay ku tashanay inaanu baro ka bedelo waxaadtiin marka afayna taga kiiloomitir bilaabeen ama ay dhamaadeen ba magaalada Boorama waxa isbedel ku yimiday ama dhaqaalaha u kordhay ama dadka yimiday ama horumarka ay gaadhay haddaba furfurka dhaqaalaha ama horumarka bulshadu wuxuu ku xidhan yahay wadooyinka iyo dekedaha gunti iyo gabagabadii isagu waxa hadalka soo afmeeray duqa degmadani Boorama Maxamed Xuseen Meedhane runaantii waxaan halkan kaga hadlaynaa maanta ma aha cid waxay leedahay waa nafteedii Boorama waxaa leenahay war waqtigii nuxnuxda iyo aqalada hoostooda aan beenta isku sheegayno way soo dhamaatay waxaan maaha qabyaalad maanta hadii la yiraahdo reebel lacagta ku bixin way doqtay war ilaahay intaan ka yaabno damiirkeenu hadan qado wadankeena hawlnaxo inagu aan sunnaxno maaha qoxani wax qof leeyahay waa doqtay 250 kiiloomitir Djibouti waxaan hubaa Jaamac Xuseen Jaamac Somali Cable TV magaalada Boorama